xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka. xafladani ayaa waxaa loogu magac daray midowgii Khaatumo iyo Maakhir. shirar kala duwan oo u soo socday labadan maamul ayaa waxa uu ku soo dhamaaday inay hal maamul wada dhistaan. si kastaba ha ahaatee xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka. ugu horeyn xafladda ayaa waxaa ka hadlay labada gudoomiye isla markaana ka sheekeeyay labada maamul taariikhda ay leeyihiin iyo waliba labada maamul ay dariska leeyihiin. xafladani ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xildhibaano hore oo ka soo qabtay dowladihii soo maray dalka Soomaaliya isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay. hadaladoodana waxaa ka mid ahaa: waxaan jeclahay inaan ugu mahadnaqo halkan dadka soo abaabulay xafladan aadka u qurux badan oo lagu mideynayo Maakhir iyo Khaatumo oo gobol ku samaysanaya hadduu aan yiraahdo. waxaan jeclahay inaan halkan uga faa'iideysto inaan idinka soo gudbino fariinta aan wadno oo caawa halkan aan idinka sheegno si cadaan ah. taariikh ahaan labadan Maakhir iyo Khaatumo oo labada gobol ama labadaas maamul waxay ahaayeen laba taariikhda kule Soomaaliya taariikh weyn. sida aad ogtihiin Maakhir halganka waxay soo bilaabeen qarnigii 13aad oo hogaaminayay Maxamuud Cali Shire. dadkan halgankaas Maxamuud Cali Shire waxaa la xiray xilligii Ingiriiska 1900 baa la xiray iyo 20kii waxaana la geeyay Vatican Sicilis. waqtiyadaas ayay ka bilaabatay. waqtigaas waqti u dhow ama koorayay 1900 iyadana waxaa ka bilowday dhinaca Khaatumo waxaa ka bilowday halgankii daraawiishta oo la rabay in la saga qaado gumeystii Britishka ama Talyaaniga. xafladan waxay daaran tahay oo biyo dhac u tahay kulamo badan oo noo socday iyo shirar badan oo aanu lahayn. waa xaflad xambaarsan fariin midnimo oo goboladaas inay geedi socod midaysan ay wada yeeshaan hadda laga bilaabo dal iyo dibadba. Last time I had the opportunity to speak to all of you was at a Katumo State event. And now we have Katumo and Maakhir together. And you might as well add Audul in there too. Because some of you represent the Dirawish state of Somalia, right? These are the people that are going to bring back Somalia, the people of the Audul Empire, the people of the Maakhir Empire, the people who founded the Dirawish state. And last, I want to say, President Formaggio, we support him. We support Formaggio. We support the Formaggio presidency. We don't consider Musa Bihi our president. We consider Formaggio our president. inay ka bilaabato goboladeena gobolkan aan dhisnay inay ka bilaabato halkaas ay xornimadu ka bilaabmaysaa. hadduu Farmaajo cod u baahan yahay oo madaxweynaha la rabo in lagu soo doorto cod shacab lagu soo doorto 45 gobol ayaa codkii ugu badnaa haysta. hasha hadday ka soo dhacdo mid baa qaata laakiin 20 sano tagneen wuxuu soo dhici waayeen walaalayaal nacaawiya. nimanka Somaliland waxaan leeyahay muddo 30 sanadood ah baad waxaad ku jirteen waa go'nay waxna waa socon waayeen. dhalinyaradii yaryarayd ee dhalatay xilligaas 30 jiray gaareen walina wax aqoonsi ama jiro. marka waxaan oran lahayn annagana taageera idinkuna markaas dee nagu daydo maamul goboleed sameeysta waa sida Soomaaliya aad wax ugu noqon dadkuna ma kala maarmaan. dadku markay maqlaan Maakhir iyo Khaatumo waxay u qaadanayaan inay laba beelood oo quri amba laba deegaan oo quri ku walaaloobay. laakiin caawa waxaan halkan idinka sheegayaa anigoo ah Mustafa Martin Maxamed oo ka soo jeeda gobolka Togdheer inaan annaga lafteedu ka mid nahay maanta caawa laga bilaabo Maakhir iyo Khaatumo.